بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ميل جوجتان با إلهي سبحانه وتعالى دكوا ما ييلو عدي دبندبك الله كقادو عدي دن لا الله وفي انت باهن الله ديقو انت بوكتا الله بوكسيو انتي دمتي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستا انغنا الله نوغا دبا نحريستو دالكا دينتا ددكا iyo dawladnimadaba إلهي سبحانه وتعالى هنو بدباديو waxaan ka hadlayaa maanta laba qodob. qodobka koowaad waa Israelization ama Soomaaliya oo la rabo in loo bedelo qayb ka mid ah Israa'iil, meel ay leedahay ay maamulato ay ka duusho iyo dadka involvedka ku ah kelmadan ka oranaya. qodobka labaad waa buuqa iyo qaylada ka yeeraysa Puntland, iyadana kelmad baa ka oranaya. aan ku hormar Puntland, ma maqli jirteen baroorta orgiga ka weyn? jimcaale sanad ka badan buu mushaar qaadanaya, 1 year buu mushaar ka qaadanaya Muqdisho, laakiin qayladu hadday bilaabatay. markasee wuxuu jiraa anaa idinka daba geynaya, xogta dhabtaa baan idiin dhiibaya. kow, dad gruub ah oo ay hogaaminayso Saacadiyo, gudoomiyaha baarlamaanka Saacadiyo iyo wasiirka duulista hawada Maxamed Faarax ayaa waxay isku dubariteen qabaa'il aan ahayn Maxamuud Saleebaan oo ka kooban Carab Saalax, Leelkase, qayb ka mid ah Ali Saleebaan, Yibro. waxay yiraahdeen waxaan haysanaa 16 xildhibaan soo far oo ka madax bannaan Deni. hadday noqoto doorasho qof iyo cod ah waxaa lagu qabanayaa gaalkacyo, waliba qayb ka mid ah oo garsoor baa lagu qabanaya galdoga baa lagu qabanaya, meelahaasaa lagu qabanaya. bari waa lagu qabanayaa, waad aragteen niman odayaalo hadlaya oo iyaguna arrintaa abaabulaya. marka 16 xildhibaan oo uu rabay inuu dambiil ku soo rito ayaa Deni gacantiisa ka saaraynaa oo annagu aan xamar la aadayna. arrintaasi waxay ku noqotay Deni dabar jab ya naasabeel wixii la oran jiray. markaasuu qaadi kari waaye, meel uu dhaqaaqu garan waaye, cid uu eedda saaruu raadinaya. jimcaaluu kala duldhacay. jimcaale anaa la hadlay, waxaan warma dagaal baa wadaa. wuxuu yidhi may, maxay tahay mushkilada meesha ka jirta? wuxuu yidhi anigu sanad Deni mushaharkii waa noo diiday. markuu noo diiday xamar baan ka doonanay, waa noo bilaabeen. dowladda dhexe ayaa noo bilowday. dowladda dhexe ciidamo kaloo tiro badan bay lacag siisaa, Deni bay lacag siisaa. 3 biloodoo kasta Deni dhowr milyan oo dollar bay siisaa. haddii dowladda dhexe lacagteedu sun tahay, tan Deni maxay sun u noqon weyday oo tan jimcaale sun ka dhigay iyo ciidankiisa? jimcaale wuxuu ii sheegay inuusan xamar u aadin dagaal. wuxuu kaloo ii sheegay haba yaraatay inaysan jirin xil loo magacaabay oo ah taliyo qaybeed, ee ay tahay gebi ahaanba wax bayaan abuura. dowladda dhexena bayjajkeeda meel ka midana aysan ku soo saarin. and by the way, xasan sheekh maxamuud ciduu magacaabi karo lama arko, waa madaxweynihii hore. wax xilo oo haya lama arko, waa madaxweyne xil gaarsiin. qayb uu Puntland u magacaabay iska dhaafe, xamar buusan u magacaabi karin. cid alle ciddii wuxuu magacaabana waa illegal, ciddii uu xil ka qaadana waa illegal, waa xadgudub. marka wax jiraba maaha. waxaa soo haray mushaharka awalba waa qaadanayne, maxaa hadda buuqa keenay? buuqan waxaa keenay Deni baa is arkay isagoo faramadow oo ka faramadow intuu albaabadiisii xirtay oo dadkii gaajo ku laayay oo mushaaradii joojiyey oo wiilka khasnajiga u ah wasiirka maaliyadda magaca haysta laakiin asal ahaan khasnaji ah, shaqadiisu waa khasnaji. ninkaasi wuxuu aaminsan yahay shilin kasta oo baad lagaga qaado dadka in uu xaq u leeyahay, iskana leeyahay Deni. marka wixii oo bac uu ku wado isaga iyo kan bangiguba wixii bac ay ku wadaan bay u geeyaan, boorsa ugu geeya madow meeshiisa u dhiga isagaa kale. dadkii marka ay faramarnaan iyo gaajo iyo isku waraysteen inaysan dowladdaba wax ku lahayn, albaabadiisuna ay xiran yihiin, uusan cidna la hadlin, isaga iyo
xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo walaalihiis iyo iyada walaalaheed iyo ilma adeertiis iyo ilma adeertood iyo ilma abtiyaashood iyo family ay ku soo aruurtay oo mashaariicdii iyagu qaateen oo wax walba iyagu afka iska mariyeen oo ay dadka lacagta canshuurta ay ka qaadayaan ay tahay baad ay ka qaadayaan ayaa dad badani ka danaystay oo waxaa la raadsaday meelo kale waxaa ka mid ah kuwa hadda aan ka hadlayo oo baar aaday xamar ogaada Sacdiyo iyo Maxamed Faarax labadaba isagaa keenay dadkii uu isagu soo magacaabay oo soo qortay bay ahaayeen xasanna waa ninkii uu keenay waana kan uu lacagta ka helo 3 bilood oo kasta xasan maaha nin kale waa kan uu isagu keenay doortay xildhibaanadiisii uu geeyey isagu uu taageeray madaxweynaha ka dhigay kadibna ay xilal isku qabsadeen xilalka hadduu heli lahaana xasan wuxuu ahaan lahaa xasan shaxshax laakiin hadda waa xasan jinni iyo belo iyo yahuu waxaas caruuraha loola yimaada qodobkaas qodob ka fiican oo si fiican ah baan idiin bayaaninaya caaw si fiican ii dhegeysta reer Puntland oo dhegeysta Puntland nabadeedu dawladda Puntland way ka horeysaa Puntland 91 ilaa hadda nabad bay ahay Puntland dawladda ahna waxaa la dhisay 1998 maxay tahay nabaddu marka nabaddu waa dadka haddii iyaga lagu soo duulana waa iskaalmaystaan oo waa isugu tagaan oo waa iska dhacshaan hadday dhexdooda wax ka dhacaanna waa isqabsadaan oo waa isku hagoogtaan oo waa damiyaan nabadda lagu sheegayaa taa weeye mid dawlad hadda dhisan oo deni uu maamulo ay keentay ama kuwa ka horreeya ay keeneen ma aha hadday ahaan lahaydna wallaan looba arkeen meelay martay ee nabaddu waa nabad meesha taal horey u taallay insha allahuna ooli doonta haddii systemku burburo Puntland baa la burburinayaa baa lagu celceliyaa ciyaalu wararka u dhiibaa meelaha ka qiilinaya maxaa la burburinayaa waxa burburayaa sibxay qabsada Puntland waa bakhaar nin u furan khasnajina u joogo wasaaradda maaliyadda iyo bankiga canshuurtana kuwa waalan oo jinniye qaba oo isaga ku khafiifay ama uu isagu samaystay oo meeyarra la yiraahdo kan garowga ka mid yahay ay lacagta dadka xoog uga soo qaadaan albaabadana ay kala baxaan hadday bixin waayaan lacagta iyada ah oo boorsooyin lagu wado baa isaga loo geeyaa qaar shirkada ku furto Zambia kaga maalgashado Dubai kaga meel kasta kaga maalgashaday Nairobi dan kaga maalgashado isagii ciyaaladiisu ay ku qooqaan oo ay ku tuntaan mawjada buu ka dhigtaa $1 milyan buu qaataa markuu Dubai aadayo 2 bilood buu maqnaadaa wuxuu ku maqan yahay ciidamada taqaan wuxuu keenay ciidamada taqaan wuxuu doonay ciidamada taqaan waa bakhaar ninka u furan bakhaar weeye marka systemka inoo dhisanay dawlad maahe waa system bakhaar ah oo hadba nin Maxamuud Saleebaanihi inta yimaado uu 5 sano ka qadeeyo markii uu ka dhargana mid kale uu ku wareejiyo hadday dunto marka dadka kale oo dhan waxba ka dhumayaan wax ka dhumayaan waa Maxamuud Saleebaan siyaasi ah oo iyaguna dhowr nin ah oo waayaya khasnadii iyo magaranaysa lacagtii iyo bakhaarkii u furnaa waayay bakhaayadu nimankaas ay u shidan tahay cid kalena looma ogola marba nin iyaga baa imaanaya intuu heli karo ku qaadanaya daaris waxa u dhisan dawlad lama yiraahdo waxaas dawlad maxaa la yiraahdaa dawlad waa service khidmad dadku caafimaad bay helaan waxay helaan biyo nadiif oo macaan oo raqiis ama free ah waxay helaan koronto waxay helaan waxbarasho waxay helaan yani sharaftooda iyo dignitygooda in la ilaaliyo waxay helaan cadaalad iyo dawlad loo siman yahay maxkamadaheeda waxay helaan waxaasa servicekaas la yiraahdaa dawlad kama jirto Soomaaliya oo dhan bay ka jirin Puntland iska badaa warkeeda maxaa u maalinaysaa nin maalin walba Maxamuud Saleebaan why what's the point dadka kale oo aan Maxamuud Saleebaan ka ahayn qaylada ma daayaan mana tashadaan buuqna ma daayaan taa waxay leeyihiin waan Maxamuud Saleebaan idinka u gura lacagta boosaas idinka uga ururiya ilaa gaalkacyo idinka lacagta u geeya idinkoo baca ku wada iyo boorsooyin marka systemka la idinka sheekeynay dawladda Puntland baa la duminaya ninka qaylinaya wuxuu la qaylinayaa bakhaarkayga la iga xiraya saa u dhaho runtana ha sheego inta la qadayso oo magaranaysa uu xoogaaga u turtuuro oo wasiirada ku sheega ahna
waxay qaataan un bariiskoodaasi ku nool anigu waa ka shaqaystaa waxaygaan cunaa buu ku leeyahay xaqiiqada dhabta ahi waa bakhaar reerkaa u furan oo marba nin yimaado oo hagbad u ah oo marba mid laga qaado mid kale la keeno qaar baa waxay ku leeyihiin tarihii baa war tarihii midinkaaba bedelay baa tarihii reerkii un baa weli haysta maxamuud saleebaan un baa haysta yaa bedesheen deni baa ka dhacay isla deni baa ku noqday deni yuu yahay masamadu ka yimi cid kala waa maxamuud saleebaan tara hagbadaba islaamaha ku jira markii ay